11 caado oo lagu garto dadka kartida leh. Dadka kartida leh ayaa lagu gartaa caadooyin gaar ah oo ay kaga duwan yihiin dadka kale. Haddaba daawade, haddii aad isku aragtid caadooyinkan, bishaarayso, waxaad ka mid tahay dadka kartida leh. Qodobka koowaad, waqtigooda kuma lumiyaan calaacal. Dadka kartida leh ma ahan kuwo meelaha calaacal la taagan oo ka eed sheegta dadka kale iyo waxyaabaha Ilaahay u qoray, balse waa kuwo naftooda mas'uul ka noqda oo danaysan in noloshu aysan ahayn mid boqolkiiba boqol ah. Sidoo kale, waqtigooda kuma lumiyaan waxyaabaha aysan koontarooli karin. Qodobka labaad, xaqooda kama tanaasulaan. Qofka kartida leh dadka kale uma ogolaado in ay maamulaan oo xaqiisa ku tuntaan. Ma isticmaalaan ereyada sida qofkaas ayaa waxaas igu qasbay iyo wixii la mid ah. Waxay si xooggan u xakameeyaan dareenkooda, waxayna aaminsan yihiin awooddooda. Qodobka saddexaad, kama xishoodaan isbeddelka. Dadka kartida leh kama wahsadaan in ay noloshooda isbeddel ku sameeyaan haddii loo baahdo. Kama cabsadaan in ay iska daayaan dabeecadaha xumaanta leh oo ay raacaan wixii wanaagsan. Qodobka afaraad, kama walwalaan qancinta dadka oo dhan. Dadka kartida leh waxay dareensan yihiin in aysan macquul ahayn in dadka oo dhan la qanciyo. Kama xishoodaan in haddii loo baahdo ay kasoo horjeedsadaan fikradda dadka maqaamka leh, isla markaana ay ka hadlaan xaqa iyo cadaaladda. Qodobka shanaad, kama leexdaan howlaha culus. Dadka kartida leh waa kuwo fahamsan culayska ay leeyihiin shaqooyinka culus, balse waa kuwo aan cabsi darteed u dhaafin howl wax ka qabasho u baahan. Waxay sameeyaan qiimeyn ku saabsan hawsha taalla, waxayna ku dhaqaaqaan waxqabad iyaga oo fahamsan khasaarada iyo faa'iidada. Qodobka lixaad, mustaqbalka ayaa u muuqda. Dadka qaar ayaa lagu yaqaan inay ka hadlaan waayo iyo sidii xaaladdu ahaan jirtay, balse dadka kartida leh kuma mashquulaan waqtigii hore, maadaama wixii dhacay ay dhaceen oo aysan soo laabanayn, balse waxay xoogga saaraan mustaqbalka iyo sidii ay uga guuleysan lahaayeen. Qodobka toddobaad, qaladaadka kuma celceliyaan. Dadka kartida leh markii qalad ka dhaco, waxay isku dayaan inay wax ka faa'iidaan sababaha keenay qaladka iyo sidii ay xal ugu heli lahaayeen, balse ma aha kuwo isla qaladka ku celceliya. Waxay qaataan mas'uuliyadda qaladaadka ka dhacay. Qodobka siddeedaad, kama xumaadaan horumarka dadka kale. Waxay ku farxaan horumarka iyo guulaha dadka kale iyagoo isku daya inay la mid noqdaan dadkaas. Kama xumaadaan oo ma xaasidaan dadka horumarka gaaray. Waxay aqoonsan yihiin in horumarka lagu gaaro hawlkarnimo, isla markaana laga doonayo dadaal dheeri ah. Qodobka sagaalaad, kuma niyad jabaan fashilka. Qofka kartida leh kama niyad jabo qorshayaashiisa markii uu fashil ku yimaado, waxa uu isku dayaa inuu kor u qaado hawshiisa oo uu la yimaado fikrado kale oo uu ku gaari karo hadafkiisa. Ma joojiyo isku dayga ilaa uu guul ka gaaro. Qodobka tobanaad, ma dhibsadaan kali ahaanta. Dadka kartida leh waxay u isticmaalaan waqtigaas inay si degan ugu fikiraan oo ay la yimaadaan fikrado cusub iyo qorshayaal muhiim ah. Qodobka 11aad, ma filaan natiijo degdeg ah. Hawl kasta oo ay qabanayaan dadka kartida leh waxay ogyihiin waqtiga ay qaadanayso oo ma filaan horumar degdeg ah. Intaas ha inoogu ekaado barnaamijkeena maanta. Inta aan ka kulmayna barnaamijkan mid ka xigo, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.